degmada shaxda oo ka tirsan gobolka Karkaar waxa ka qabsoontay munaasabad si weyn loo soo agaasimay taasoo lagu caleem saarayay ugaas Maxamed ugaas Jaamac Baruur munaasabada caleem saarka ugaaska waxa ka soo qayb galay odayaal dhaqameed aqoon-yahano dhalinyaro iyo qaar ka mid ah bulshada rayidka ugu horeen maamulka degmada ayaa ka hadlay goobta munaasabada nabadoono waxgarad iyo uqaashi ka soo qayb gashay munaasabada ayaa si weyn u soo dhaweeyay caleem saarka ugaas Maxamed Jaamac Baruur ayagoo alla u bariyay inuu u fududeeyo xilka dhaqan ee loo idmaday anigoo ah gudoomiye ku-xigeenka degmada shaxda Cabdillaahi Cali waxaan salaamayaa awalka ugu horeeya ugaas Maxamed ugaas Jaamac Baruur oo xafladiisa maanta aan ku hayno degmada shaxda waxaan kaloo salaamayaa ka soo qaybgalayaasha sida عاقلينتا نبضوندا ugaas Jaamac Maxamed oo waxa lagu caleema saaraya degmada shaxda oo dalkaaga oo dadkaagu joogo waxaan ku leenahay mar la saddexaad ku soo dhawow ugaasnimada maanta aan kugu caana shubayno inuu dadkiisa iyo dalkiisa waxaan faco Ilaahay baan uga baryeynaa cimrigiisana uu dheereeyo diintana u furo oo u badiyo baanu rabbi u baryeynaa Cabdullaahi Ciise dhagax jare oo ka imi degmada Yibaayil halkan maanta waxaan ku caleema saareynaa ninka hore magaciisa aan u soo sheegnay ugaas Maxamed ugaas Jaamac baan ku caleema saareynaa degmada shaxda maantay annaga oo ah ummad badan oo meelo badan isaga timi Arab iyo Soomaalina leh madaxda Soomaaliyeed kiilamaad shay noqo intii ka maarantii xaasidkaagu maqan maalik meeshaad ma dhaba moosa kaaga furo caaqil Muuse Nuur Galow oo kamid ah caaqilka guud ee beesha Abdiraxmaan Harti ayaa caleem saarka ugaaska ka hadlay soo dhaweeyay inaad ugaaskayga noqoto inaad wiilkayga noqoto inaad nala joogto inaad dalka iyo dibaddaba nooga wax gasho inaad insha Allah bismillaahi tacaala aad noqoto run inaad noo sheegto run inaan ku wada shaqeysano waxa la caleem saaray ugaas Maxamed Jaamac Baruur ayaa madasha lagu caleem saaray wuxuu uga mahadceliyay ugaaska intii ka soo qayb qaadatay munaasabada marka walaalayaal waa mahadsantihiin sida sharafta leh aad ii soo dhaweyseen Ilaahay waxaan ka bariyay subxaanahu wa ta'aala Ilaahay idinkiis Soomaaliya inay isku hagaagto 10 sano ama 5 sano oo dhimanna Ilaahay waxaan ka rajaynayaa in nin ummadda Soomaaliyeed u gargaaro oo tabliiq ah oo dadka dhan u dhaxeeyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala taasan Ilaahay ka isinkan ayaa ka mid noqon doona ismada Soomaaliyeed ee xilligan laga sugayo inay xaliyaan isqabsiga u dhaxeeya qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed xabiibaladan